السلام عليكم ومبارك محمود صليباني channel كيني تيضون ميديا maanta waxaanu ku hadli doonaa qiso ku saabsan ninka la yiraahdo Leo Tolstoy. Leo Tolstoy wuxuu ahaa qoraal Ruush ah oo noolaa intii u dhaxaysay sanadihii 1828 ilaa 1910 miilaadiga. wuxuu ahaa hormuudka sheeko-faneedda dunida, waxaana loo arkaa inuu ka mid yahay qorayaasha ugu waaweyn ee abid soo maray dunida. waxaana hal abuurkiisa bogaadiyay mucjizadii sheeko-faneedda ee ay isku dalka iyo isku casriga ahaayeen. waa ninka la yiraahdo Fyodor Dostoyevsky. Tolstoy labadiisa sheeko-faneed ee mahadhada reebay waxay kala yihiin sheekada koobaad oo la yiraahdo War and Peace, sheekadaas oo soo baxday sanadkii 1869 miilaadiga, iyo sheekada kale ee la yiraahdo Anna Karenina, sheekadaas oo soo baxday 1878 miilaadiga. Tolstoy wuxuu ka dhashay qoys ka tirsan dabaqada sare ee Ruushka, wuxuuse ku dambeeyay sabool khamriyahana oo qaamaysan. wuxuu ahaa ilmaha afraad 5 carruur oo aabihii dhalay. hooyadii waxay dhimatay isagoo 2 jir ah, aabihiisna wuxuu dhintay isagoo 9 jir ah. wuxuuna ku soo barbaaray rajaynimo iyo agoonnimo sida ay halyeeyada dunidu u badan yihiin. sanadkii 1844 miilaadiga ayuu jaamacadda Kazan wuxuu ka bilaabay barashada sharciga iyo aqoonta afafka iyo diimaha bariga dhexe, gaar ahaan af Carabeedka iyo afka Turkiga. laakiin aqoontii uu jaamacadda u galay midna ma dhammaysan, waayo xaaladiisa nafsiga ah ayaa aad u xumayd. kadibna walaalkiis weyn ayuu u raacay dhulka Qowqaaska, waqtigaasna wuxuu ku biiray ciidanka Ruushka, wuxuuna kala qayb galay dagaalkii Ruushka ee Crimea. dagaalkaas oo socday intii u dhaxaysay sanadihii 1853 ilaa 1856 miilaadiga. dagaalkaas oo Ruushku doonayay inuu ku qabsado Crimea. mar kale Tolstoy wuxuu Ruushka kala qayb galay dagaalkii uu Ruushku doonayay inuu dalkii Islaamka ahaa ee Chechnya ku qabsado. markii dambena in muddo ayuu ka sii shaqeeyay dalka Chechnya. sida la hubana halkaas ayuu ku bilaabay qoraannimada oo hal abuurkiisa ugu fiicnaa uu ku qoray. sheekooyinka uu waqtigaas ka qoray muslimkana waxaa ka mid ahaa 2 buug ee kala ah Xaaji Muraad iyo Kasaak. Tolstoy wuxuu ahaa nin bulshaawi ah, nin fikir ahaan fallaaga ah, nin istiidooyin badan, nin ruuxaani ah, nin weligii baadigoob ugu jiray helista Ilaahay iyo garashada runta nolosha. caqiido ahaan wuxuu ahaa nin ay ku dhacday mixnad ama hoog nafsiyadeed. haddaba bartamihii sanadkii 1850 ilaa 1861 socdaal dheer oo uu Yurub ku kala bixiyay ayaa saameyn ku yeeshay, gaar ahaanna sanadkii 1857 miilaadiga, markaas oo uu magaalada Paris ku daawaday dad lagu fulinayo xukun dila. isla waqtigaasna wuxuu dalka Faransiiska kula kulmay hal abuurkii mucjisada ahaa, waa ninka la yiraahdo Victor Hugo oo ahaa gabya Faransiis ah, sidoo kalena sheekooyinka iyo riwaayadaha kala duwan curin jiray. waxaana la hubaa inuu wax badan ninkaas ka bartay, gaar ahaan falsafada akhlaaqda. haddaba caqiidada nafsiyadeed ee ku dhacday Tolstoy waxay gelisay inuu noqdo cilmi baare, filosof, hal abuur, diin laawe, masiixi, muslim iyo kanadiid intaba. aragtidiisuna ugu dambeyntii waxay saldhigatay rumaynta furan oo loo yaqaano iimaanul mudlaq. wuxuuna qaatay aragtida nabdoonaanta oo afka qalaadna lagu yiraahdo pacifism, oo macnaheedu yahay in dadku khilaafkooda ka ilaaliyaan gacanka hadal. xitaa ninkani waxa uu ka kufriyay dowladnimada, waayo dowladdu waa awood loo adeegsado dulmiga ayuu yidhi. sida aan ka helay Wikipedia, warqad uu saaxiibkii u diray wuxuu ku leeyahay, runtu waxay tahay dowladnimadu waa xeelad loo abuuray in dadka lagaga danaysto oo lagu musuqmaasuqo. sidaas darteed maanta laga bilaabo uma adeegi doono dowlad marnaba iyo meelnaba. dhinaca kale, Tolstoy wuxuu dhambaalo kula xidhiidhay dad badan oo muslim ah, gaar ahaanna waxay fariimaha waraaqaha isu diri jireen ku saaxiibeen caalimkii weynaa ee la oran jiray Maxamed Cabdo, caalimkaas oo ahaa muftiga Masar. haddaynu u nimaadno dhinaca nolosha gaarka ah ee Tolstoy, sanadkii 1861 waxa uu guursaday gabadh la yiraahdo Zofia Behras. gabadhaas oo u dhashay 13 carruur oo badhkood saqiireen. ninka la yiraahdo Tolstoy waxa uu halkan adag u galay in aan la siin abaalmarinta suugaanta dunida ee loo yaqaano Nobel, taasoo loola diyaar ahaa.
wuxuuna maray tabtii filosofkii Faransiiska ahaa ee loolan jiray Jean Paul Sartre. wuxuuna diidanaa in la farageliyo maskaxdiisa, akhlaaqdiisa iyo arsaaqadiisa. ugu dambayna sanadkii 1910 miilaadiga, Tolstoy oo waqtigaas socdaal ah oo tareen saaran ayaa xumad qabatay. ugu dambayna waxa uu dhintay xanuun sanbabada ah isagoo waqtigaasna ahaa 82 jir. tuuladii uu ku dhintay isaga ayaa loogu magac daray. haddaba sidii dhaqanku ahaan jiray aaskiisa may iman qoladii kiniisadu, waayo gaal bay u yaqaaneen. waxaa kale oo la yidhaahdaa isaga qudhiisa ayaa diiday in baadariyadu meydkiisa ka soo ag wareegaan. isaga iyo wadaadada masiixiguna waxay aad ugu coloobeen inuu ku diidanaa sida ay diinta ugu danaystaan ee dadka u dullaystaan iyaga oo magaca Ilaahay adeegsanaya. sababtaas bayna u gaalaysiiyeen qoladan kiniisaduhu sanadkii 1901 miilaadiga. dad badan baana qaba Tolstoy inuu muslimay oo qarsanayay, balse lama hayo wax caddayn ah. xaqiiqadu waxay tahay iimaankiisu diin qura kuma uu koobnayn, oo wuxuu ahaa nin diimaha oo dhan bartay. diimaha uu bartayna waxaa ka mid ahaa diinta masiixiga, islaamka, buudhiisamka iyo hinduusamkaba. waxa kale oo xaqiiqaha laga bilaabo 10 jirkiisii inuu noqday taqi saahid ah oo dhowrsoon. daawadayaal, muuqaalkana waxaan ka soo xigtay ninka la yiraahdo Ibrahim Hawd Yuusuf. fadlan daawade, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar. sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto muuqaalada dambe soo gelin doono, annagana ay noogu noqoto dhiirigelin. maantana walaalayaal halka ay noogu joogto. wassalaamu calaykum.